مسؤوليinta golaha deegaanka dawladda hoose ee degmada Sayla ayaa abasho xoogan ka muujiyay go'aan ka soo baxay dawladda dhexe gaar ahaan wasaaradda arrimaha gudaha kaasi oo lagu laalayo in cashuuraha degmooyinka Cabdulqaadir iyo Caashacado oo hoos yimaada degmada Sayla inaanay iyagu cashuurta ka qaadi karin arintani oo lagaga dooday kalfadhiga golaha deegaanka oo ka furmay degmada Sayla oo uu shir gudoominayay maayirka magaalada Sayla Xuseen Iidla Barkhadle waxa weeyaan abasho aan kaga cabanayno golaha deegaankii go'aan ka soo baxay wasaaradda arrimaha gudaha oo go'aankaas oo oranaya in lagu xiro laba goob cashuureed ama laba xafiis oo dawladda hoose ay leedahay in albaabada loo xiro go'aankaas oo goluhu ka soo jeediyay cabasho aad iyo qayladaan isla markaana ay u gudbinayaan wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha iyo labada gole ee dejinta ee dalka sida golaha wakiilada iyo golaha odayaasha iyo ururka dawladaha hoose algasa la yiraahdo qaybteeda sharciga cabashadayaas waxay leedahay labada goobood ee cashuur waxay u furnay dawladda hoose muddo 22 sano go'aanka ka soo baxay wasaaradda go'aankaasi lagu xirayo labada xafiis ee dawladda hoose iyo kuwana haba yaraatay ana cuskan xeer ay iyo sabab ay u xirayaan oo ku cad warqadaan kuna qanci weynay sida darteed cabashada waxaan leenahay guddigaasi wuxuu ku tuntay sharciga dalka iyo kii u yaallay ismaamulka madaxa bannaan ee gobolada iyo degmooyinka ayay si bareer ugu tunteen iyo ku fulinaya go'aan ficilaysan oo gooni ku ah dawladda hoose degmada Sayla ma aha ku degmooyinka kale dalka u soo baxay go'aankan ku soconaya maaha sidoo kale maamulka degmada Sayla ayaa sheegay inaanay aqbali doonin go'aankani iyagoo ugu baaqay golayaasha deegaanada dalku inay ku taageeraan cabashadooda ku aadan cashuurta degmadooda hadda waxa xafiisyadaasi laguma eedeyn cashuur xaraan ay qaadaan marka haddii cashuurta xeerka xalaasha ay ku qaadayso aan kuna qaadayn sharci xeerayaan ma jiro halkaan waxaan leeyahay warsoobsad xadgudubka inta laga noqon yeelay mayno waxaan leeyahay kale oo la hadlaynaa golayaasha deegaanka dalka waxaan leeyahay inaguna xeerkan dhawaqa iyaga taageero oo u heeyay xeer waayo sabab waxa jira xeerka nin la celiya loo sameeyaa nin la jecel yusuga bariibo inagana inuu sugayo wasaaradda soo koob waana qawacaynkan inay ka soo saartaa dhici karta sida darteed waxaan uga codsanaynaa inagana Sayla gacan ku siisaa gudaheeda ma go'aanka qalabsan ee sharciga balmarsan ku tagrifalka awoodiyada Xuseen Aateye jaamaca telefishinka caalamiga Universal magaalada Sayla.